dowladda hoose ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka bilowday wajiga labaad ee wadada isku xidhaysa Al-Khaliil Spare Party iyo xarunta shirkadda Telesom. Haddaba bilowga wajiga labaad ee wadada isku xidhaysa Al-Khaliil Spare Party iyo xarunta weyn ee shirkadda Telesom waxa goobjoog ka ahaa maayarka magaalada Burco Ustaad Maxamed Muraad xildhibaan Kayse iyo xildhibaan Bili oo kamid ah golaha deegaanka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana hadaladoodii kamid ahaa wadadan aan maanta wadnaa ووضع تلسوم هرمرته إلى الخليج لبدأ لهم وضع اسمه يسوي حوالي وإلى 6 بقول أو متر وميل وباهنين وضع لقى سمايو أو أي بيو فريسين ترينو صح ما بدن لقوا قبي وأنا سوق برتن كيسة وذهب شيل يندير أقول إلى عن كبرنا إن أي نقطة متر خانديس له ونكسن تدوينها ربع أنا وحن كعصرنا ودوين كاسيني إني سي حق دوران وحنا نقسميننا ما هالعجة نقول نسيني وعشورتي أن كأورورين إني وح كميدا إن شاء الله لبوا دائم كنا هرسن قرشه وضع دائم عرتول كان دقني وضع سيلده إلى كنترولك يو أكتوبر لبوا وضع نهرسن هذا تنمر كان دمينه بريسة دبوا يسعون سدي لها كدقو وحنصور دمينا أيضا وضع سيلده saddexdii sanadood aanu joognay waxaanu maanta maraynaa wadadii 12aad ee aanu maanta shubayno waa wax qabadkii oo dadweynuhu noo doortay inaanu wax u qabanno waxa weeyaan dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa wadada in ay ilaaliyaan oo ay ilaashadaan oo ay dayactirtaan waxa weeyaan anagoo halka ka sii wadayna oo ku ballan qaadnay inaanu ka dhigi doono haddii Ilaahay ka dhigo marmar magaalada waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha ku soo jeeda ee xaafadan in ay soo dhigaan falaadkii ayaguna hortooda oo ay wadada soo gaarsiiyaan waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba inay ilaashadaan wadada in biyaha laga ilaaliyo in wasiiqda laga ilaaliyo in danta qaranka meel looga soo wada jeedo laantood aanan wadooyinka faraha badan oo suura galeen dowladda maanta joogtay ee kulmiye oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Xamed Silaay ayaa runtii si fiican uga caawiyay wadooyinkan waxaana loo fududeysay wasiirada Soomaaliyeed ee shacabka oo maanta labadaba wadooyinka aanu sameynay waxa isku jira wax dowladda laga caawiyay iyo wax shirkad wax anagu aanu sameynay dowladda Soomaaliyeed dadweynaha reer Burco waxaan u jeedaa in xaafaduhu ay sababaan oo iyagu ay wax la yimaadaan oo dhaqaalaha iska ururiyaan dadka ay mooy maadana naga diyaar baan naga weeraraan waxaan uga mahadnaqayaa bilicda ay ka shaqeynayso gobolka iyo wadooyinka ay wado waa shay aad u waxaan jeclahay hal inta ka sii farabadiyaan marka waxa weeye gobolka Togdheer waxaan kula dardaarmayaa inay gacmaas wada qabsadaan inay iyaguna qaybtooda ay ka soo baxaan Sakriya Cabdiraxmaan Ibraahim shabakada wararka madax bannaan ee Hargeysa Price gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.